Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa caalamka ka codsaday sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deymaha faraha badan ee lagu leeyahay si ay dawladda Soomaaliya u dardargeliso dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa caalamka ka codsaday hadda in la dardargeliyo sidii Soomaaliya looga dhaafi lahaa deymaha si ay u suurto gasho hirgelinta isbeddelka ee waddo xukuumaddiisa isagoo tilmaamay in ay lama huraan tahay in Soomaaliya ay ku soo laabato saaxadda caalamka isagoo ka hadlayay kulan ka qabsoomay fagaaraha dhaqaalaha adduunka ee magaalada Davos ee dalka Switzerland si gaar ahna diiradda loogu saaray arrimaha Soomaaliya ayuu mudane Kheyre sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay fuliso ballamaha ay horay ugu qaaday ummadda Soomaaliyeed sida hirgelinta mashaariicda dib u habeynta iyo qorshaha horumarineed ee xukuumadda oo ay ka mid tahay dhisidda amniga mashaariicda kaabayaasha dhismaha hay'adaha dawliga ah iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka. Kheyre ayaa intaasi ku daray in Soomaaliya kaligeed aysan fulin karin arrimahaas iyada oo dhaqaalaheedu xadidan yahay culayska deynta ee dhaxashayna uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 6 bilyan oo dollar. Ra'iisul Wasaare Kheyre wuxuu hoosta ka xariiqay in dardargelinta deyn dhaafka iyo la xiriirka hay'adaha maaliyadda caalamiga ah ay muhiim u tahay horumarka dalka Soomaaliya. Wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay ku hawlan tahay la shaqaynta hay'adahaasi ayna ku dadaalayso sidii ay u fulin lahayd shuruudaha loo qoondeeyay si ay u joogtayso xiriirka una wanaajiso maareynta maamulka maaliyadda. To achieve what we've achieved. Tragically today, we seem to be a nation that is inflicting harm in our continent. After many years now, Somalia has a great opportunity. We still have challenges in terms of insecurity, challenges of resources, in terms of actual liquidity and cash. But today, where we are, we have a number of potentials that I'm going to draw into the attention of those of you who in the audience and those of us joining us from somewhere else. One, the nation have had a powerful transition of power, democratically elected president, and when the power was being given, or you had two former presidents, the one who was defeated, the previous one, and the